الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو dhawaada saaxiibayaal meel kasta caalamka joogtaan inaad caafimaad qabtaan ayaan rajeynayaa maanta waxaan isla eegi doonaa forecasting-keena asbuucii ugu dambeeyay bisha August waana bil dhamaadkeed bisha tan asbuucyadeedii hore xogaa aad bay iskaga adkaayeen asbuucii ugu dambeeyay waxaa moodaa inay aad ay u fiicneen dhaqaaqeedu haddii aynu ku bilowno lacagta DXY-ga dollarka oo ah lacagta xukunta lacagaha maaragtay aynu trade gareyno sida Eurusd iyo Gbpusd oo ah labada lacagood kaliya aan trade gareeyo lacag saddexaadna ma trade gareeyo lacagta dollarka waxaa aragnaa horta sideeda order flow-geedu inuu buy yahay oo ay kor u jeedo daily time frame markii la joogo inkastoo halkan internal yar oo sell ah uu ku jiro laakiin haddana waxa uu jeednaa in order flow-geedu uu buy yahay meel fiican la keenay zone hoose la keenay oo demand zone order block-yadan liquidity ayadana la qaaday inta kadibna ay macquul tahay in high cusub ay lacagtan keento oo ay high halkaas ay ka soo bilowdo oo size ka socoto marka wal liquidity-dan qaado xogaa soo nasato marka labaadna hayga ay dib u target gareyso taasina waa macquul liquidity-na waa la qaaday kan ahaan liquidity waa xisaabsan karnaa hadii meelaha la yimaadana liquidity daily ama wax kala ah hadii aynu ka helana kaba si fiican 4 hour-ka marka la joogo lacagtan 4 hour-keedu waa down trend maadaama dhegdhigu uu bulba ku jiro 4 hour-ka iyo wixii ka hooseeyana ayagana waxay noqonayaan sell ayay noqonayaan maadaama 4 hour-keedu mar walba sell yahayna waxa fiican lacagta mar walba time frame-ka sida ay ku tahay mar walba inaad ula deal gareyso 4 hour-ka wax macquul in gaabkan dib loo soo buuxsho and then another low halkaas laga keeno oo dhaydiga meeshii order block hoose maaragtay dib loo keeno waa macquul 4 hour-keena hadii laakiin halkaas koro oo kale kor loo jabiyo lacagtu sideeda soo baxdo kor jabiso 4 hour-ku buy noqdana daily time frame iyo 4 hour-kaba labada walba gees bay maaragtay hal dhinac baynu u wada jeedsananaa markaasna waxa macquul ah in hayada tan kore la soo qaado oo dib maaragtay loogu laabto hadii lacagtan ay buy noo noqoto waliba 1 hour-ka hadaba ka dhowbaan uu is leeyahay 4 hour-ka afterkiisa 1 hour-ka laakiin wuu yara fogay halkan waa iska internal oo aan ahaan oo xisaabsanayay sidii aan idin kula soo wadaagay sawirradii maanta Telegram-keena qofka Telegram ku jirana wuu soo join garin karaa hadii uu doonayo 1 hour-keenu waa iska external-kiisu halkaas banaanka maadaama halkan uu si fiican ugu dhexirmin kan waa internal dhexda loo soo jabiyay waxana macquul ah in meelahan la keeno ilaa order block-yada tan ilaa gaabyada tan la keeno aan sell kale ay halka ka soo baxdo maadaama 1 hour-ku uu sell yahayna fursadaha sell-kaana waa macquul inay maaragtay ay yimaadaan inkastoo lacagtu meel hoose joogto aynu buy u rabno laakiin haddana sell-ka hadaa aragtid hadhihin yani sell-kan waxba kama jiro iyo ma qaadan doono marka saasaynu dul maraynaa waxaan u wareeganaa bal lacagta Eurusd ayadana iyo sida aan u aragno lacagta Eurusd dheligeedu ayadana waa sell oo waliba iyadu waa waadax wax maaragtay hadal kuma jiro waa iska lacagtii dollarka DXY-ga oo rogan hadii dollar DXY uu buy ahaa tanna waa sell waa way kala jeedsanayaan mar walba lacagta euro ayadu mar walba waa ujeednaa waa sell maxaynu hadda ka filan karnaa maadaama pullback fiican ay keentay lower low and then lower high qurux badan ay keentay waliba meel maaragtay loo baahna oo premium ay keentay inta kadib inay lowga maaragtay soo qaado oo lower low cusub ay dib ka keento bayna u baahna waxaana rajaynayaa halkaas uu pullback ay ku ekaato maadaama order block uu tagay hadii kaas aan dib loo soo taamaneyn ma sheegin order block-gaas ugu dambeeyo kale laakiin hadda meel zone way joogtaa oo kore supply zone fiican bay joogtaa liquidity-na way qaaday oo dhexe inay maaragtay halkaas 1 hour 4 hour isa isku soo bedesho hadda pullback maaragtay la istaajiyo oo hadhow dhaqaaqo si fiican halkaas uga soo dhaqaaqo ayaan iyadana ka rajaynaynaa wax walba waa sidii aan sawirradii kula wadaagay sawirradii baynu dul maraynaa 4 hour-keedu waa kan 4 hour-ka lacagtan maxaa la dhahaa buy ah
maadaama dee 4 hour ku buy yahayna fursadaha buyga ahna dee laftirkooda waa way soo badan karaan haddii hadda meeshaan la keeno 4h-ka dee dib waa halkaas way uga laaban kartaa lacagtu maadaama dee 4 hour time frame baa maaragtay buy ah laakiin dee inagu sida aan rajeynayno oo aan fulinayno waa in 4 hour-keena laga istaajiyo waxa fiicanba in haddii 4 hour-ka meelaha bullbacktan oo maaragtay variable gapkaas meelaha yimaado haddii hadduu maaragtay halkaas 4 hour kale dib ugu noqonayo adoonisaan loo soo istaajiyo inkastay halkaan ay yara fog tahay haddii laakiin saasi la mid ah aynu dhahno dhaqaaqo dee sidiisa ha iskaga soo baxo 4 hour-ka ah afwan dhaqaaqa 4 hour-ka ah haddii aynu dhahno dee sidiisa ha iskaga soo baxo saan ha ku soo socdo dee waxay noqonaysaa laftirkeeda dhaqaaq oo aggressive inuu meesha ka soo baxay inkastoo dee marka hore laftirkiisu aggressive ahaan uu halkaan u soo baxay oo waa la filanay dhaqaaqa sidaan u weyn inuu soo baxo laakiin sidaan kalena laftirkeeda ayadana way dhici kartaa in mar kale ayadana sidii si la mid ah ay u dhacdo oo aggressive kale haddana lagu soo jabiyo maadaama dee dailigu isagu maaragtay ay wixiisa u dhammaystiran yihiin oo daily order flow oo awoodda suuqa qabtana waa macquul sidaana waynu ka filan karnaa 4 hour-ka inuu u shaqeeyo 4 hour-ka 1 hour-ka wax badan ma kala foga waa isku meel iyagana dee sidaan ha u socdo inkastoo 1 hour-ka halka kan aynu u jeedno oo isagu dee isu soo bedelayba liquidity reversal buu sameeyey bullbacktiisi ayuu dib halkan usoo jimay liquidity reversal ayuu sameeyey sidoo kale 15 minute-ka iyo 1 hour-ka kanna waa isku meel ayaga laftirkoodu wax badan ma kala foga marka intaas ayaynu ku dhaafaynaa ayadana lacagta Eurusd-ga waxaynu tegaynaa Gbpusd iyadana ah lacagta labaad oo aynu ka trade garayno dollarkana waynu la fiirsanaa maadaama labadooda dollar ka dambeeyo ama dollarka ku dabaqayno iyadoo xoogaa waxaa moodaa sheekadeedu inay ka duwan tahay lacagahan kale sida dollarka iyo eurada lacagtan waxaa moodaa in xoogaa si ay buy u tahayba halka kan markii la fiiriyo higher loogu keenay nan liquidity ahaan buu markaan isku soo jebiyey and then maaragtay dhaqaaqi baadana meesha laga saaray nan liquidity-ga isku soo jebiyey ayaa meesha laga saaray inuu kan bullbacktiisa noqdo and then high cusub uu keeno waa macquul haddaba say macquul ku tahay aynu isla fiirino xaggan waxaynu aragnaa in dhaqaaqa kan markuu haygaas jebinayay oo maaragtay laftirkiisa dhaqaaq gudaha ah uu haystay dhaqaaqyo yar yar ah oo gudaha abusaan u haystay buu keenay and then laftirkiisa intaas way iska yaryar tahay ilaa halkaan iska soo xisaabsanaynaa ilaa lowgaan kale haddana soo jebiyey and then high buu haddana dib maxaa la dhahaa isku jebiyey highga haddana hoos baa loo soo jebiyey waxaa moodaaba dheligeedaan tani maaragtay aad iskugu laalaabtay sidaynu maaragtay dee salkaas u filanaynay halka kan hadduu inoogu hoos xirmi lahaa I think in buuq badan uusan meesha xoogaa ka jiri lahayn laakiin dee liquidity buu ku sameeyey and then highgu haddana dib u jebiyey maadaama highga dib u jebiyey dee waxay la micno tahay markaa buyga kan iyo buygan kala israacay laba buy baa meesha jooga kanna internal bay ahaayeen waxaan dhexda ku jiray internalkiina waa la istaajiyey and then dee internalkii hadda kor baa moodaa inuu ujeedo and then intuu bullback keeno hay cusub saas uu keeni karaa hay cusub waa uu keeni karaa laakiin haddii uu hadda maaragtay lowgan la soo jebiyo oo kale hadduusan meelaha dee mid kale uusan ku dhex samaysan intuu suuqu maaragtay dee soconayo haddii lowgan saan loo soo jebiyo oo kale laba dhaqaaqo kale iskaga soo jebiyaaday dee kanna waxba ma jiro waa la isku qaadayaa markaasna dee waa dailiga maaragtay si sax ah inkastoo kan yani ahaan ila sii maaragtay qumanaan lahayd in kaa hoose la jebiyo laakiin kan laftirkiisu waa maaragtay wuxuu noo dhisayaa kalsooni badan baynu ka helaynaa marka dailigeedan oo kale lacagtan xoogaa waxaa moodaa inay ka duwan tahay eurada iyo dollarkaba inay ka duwan tahay oo dailigeeda haddaa sal dhahdinna dee salkii u fiirin karta haddaa buy dhahdi buyda u fiirin karta marka dailigan inkastoo hadda internalkan awoodda haya uu buy yahay ilaa internalkaas salka maxaa la dhahaa sal ahaan loo soo jebinayo ma dhihi karno dailigu waa sal lacagtan Gbpusd aniga ahaan dailida buy baan u arkaa inuu yahay 4 hour-ka haddii aynu usii gudubno kan aniga si dhalido
for hour-ka haddii aynu usii gudubnana dee for hour-kiisu mar walba dee dhaqaaqii gudaha ku jiray dhayliga ahaabaa mar walba dee wada oo waa by isaga laftirkiisu internal badan buu halkan isku soo dhex jebiyey ilaa uu externalki weynaa meesha ka saaray meesha ka saaray daanig ahaan sidaa u arkana lowga kan ilaa ay haygaas haddii aanan qaldanin baan u arkaya kan dhex waxa uga booday kanalkaasi kusii dhex jiraan kanalka kana dee maaragtay waxa wada meesha kama dhex lahan marka maxaa ka macquula waxa macquula dee inuu maxaa la dhahaa gaabkan la yimaado meeshaan lasoo buuxiyay imbalansigaas and then high cusub lacagtan ay keento maadaama dhayligeedu sideeda uu bay ugu jeeday haddii kalena dee zonekan hoose hala keeno demand zonekan oo kale halkan hala keeno and then markaasna dee bay ha keento lacagtu haddii kale 1 hour ha la soo jebiyo 1 hour-ku si fiican ha usoo socdo ilaa uu meesha ka saarayo 4 hour-ka oo dhaqaaq internal 1 hour awood leh haddaynu helno ilaa 4 hour-ka meesha uga saaranana dee selka taasaasaynu ku xisaabsan karnaa haddii wax sela aynu u baahannahay laakiin hadda waxaa moodaa xoogaa inay maaragtay order flow ahaan lacagta euro ay ka yaro qurux badan tahay markaynu sel raadinayno sel u fakerayno euro xoogaa selka kaga leh say ila tahay 1 hour-keedana saan baan u arkaa lowgiisina waa ika haykaasuu ahaa then low hay cusub halkaasa lowgan haddii saa la soo jebiyo maanta ama biri oo kale dee 1 hour internalkaas oo maaragtay hoosta usoo jeedana waa maaragtay 1 hour-kaas hoosta usoo jeedana waynu maaragtay ku dabaqi karnaa haddii 4 hour meesha looga saaro iyo haddii isaga dib loo soo istaajiyo labadaba waynu arkaynaa marka insha allah marka dee sawirada idinla wadaagay intaasun bay ahaayeen saaxiibayaal forecastingkayga asbuuca iyo sidii aan u arkay lacagaha euro USD DXY iyo GBP USD saddexdaba marka aniga ahaan waxay la tahay dhayliga euro ayaa aad u qurux badan eurona maaragtay xoogaa isleeyahay tiraryada badanka ka fiiri weliba tiraryada qurux badan marka wax walbana suuqa way ka dhici karaan risk managementkaaga ku dadaal risk managementku waa muhiim risk management baa meesha kugu hayn kara waxaan hadda maaragtay sida aan u aragno baanu fursada u fulinayna haddii saxan tahay waa ku guuleysanayna haddii ay khaldan tahayna risk managementkaaga waa inay laakiin haddii dee hal wax iska dhaadhicid dhahdid sidaas bay noqonaysaa oo hadhowna dee waxa ay dhan hal tirirka la baxo waa fool xumay noqonaysaa ma garad marka aad ha la isku ilaaliyo risk managementkana hal la ilaaliyo haddii order flow suuqa aad taqaanid wax badan uma baahnid haddii dee sida order flow loo saxo kale suuqa haddana order flow-gaygan waa daily dhayliga dee sel baan u arkaa soo maaha dee waxaan u baahanahay keliya inaan gudaha u dego 1 hour-ka iyo 15 minute-ka iyo waxaas fursadda sidii aan maaragtay dee usoo dhisan jirnay inaan usoo dhista keliya laakiin dee xitaa haddii aad systemyo kale isticmaalayso oo taqaanid sida order flow-ga hayr logo loo aqriya dee taqaanid wax badan uma baahnid inaad maaragtay dee system kasta xitaa waa ku dabaqi kartaa order flow-gaaga mar hadda order flow-gaaga taqaanid marka ku dadaalayna order flow-gana maaragtay isagana fahamkiisa sidaan u aragnana aniga ahaan aan u arkana lacagaha kan waa sidaas euro oo kale hadda 15 minute-kayga iyo 1 hour-ku labaduba hoos bay iigu jeedaan sida aan u arkayo hadda 15 minute-ka inoo geeyana waa kan 15 minute-kana saas baanan hadda u arkaa oo dhaqaaqigii 15 minute-ka ahaa haddaan waadixiyo haygaas iyo lowgaas u ahaa kan baa liquidity ku sameeyey and then isagii meesha ka saaray marka dhaqaaqa hadda aa haysto waa midka kan isagaan u baahanay inuu pullback sameeyo and then dhaqaaq kaloo sela aan kasoo raadiyo baan u baahanaa marka intaasaan kusoo koobayaa saaxiibayaal aad baad mahadsantihiin insha allah intaynu muuqaal kan oo kale ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo qofkii telegramka u baahana qaybta description-ka ayuu yaalaa wuu kusoo biiri karaa wixii qofkii su'aal qabana wuu soo weydiin karaa cidda caawimaad u baahana waan caawinaya insha allahu tacaala nabadgelyo